saaxiibayaal waa subax qurux badan oo ka duwan subaxyadii kale. saaka safar dalxiis ayaynu nahay aniga iyo asxaabtaygu wehelinaysa dalxiiska. saacaddu waa 5:15 subaxnimo. waxaan ka soo alaab gurtay gurigaan ka deganahay magaalada Addis Ababa, kuna sii wajahan goobta uu safarku ka bilaabmi doono. waxaynu ku sii wajahannahay magaalada Wanji ee gobolka Oromiya. safarkan ayaa qaadan doona masaafo dhan 156 kiiloomitir oo gaadhi ah. goobtaas oo goobaha ugu quruxda badan ee dalka Itoobiya loo dalxiiso. haddaba muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa waxyaalahaanu kala kulanno magaaladaasi Wanji. waan salaam saaxiibayaal, saaka 6 subaxnimo ayaynu ka soo socdonnay magaalada Addis Ababa. haddana waxaynu ku sugannahay goobtii aanu ka quracanaynay. rag bay igu helinaya safar dalxiis oo aad iyo aad u qurxoon ku jirnaa. rag badan meesha ka arkaysaan. rag kale oo badanna way naga sii dambeeyaan. laba gaadhi baan wadanaa, bas iyo mid waxa weyn bareefada. insha Allah safarka dalxiiska wuxuu noqon doonaa midka ugu qurux badnaa aan soo baxno. kuwa badanna oo sugi doontaan. Mesra me falgajo aun masmarambo rag khiyaaro kale na sugaysa. waanu quracanaynay oo hawdkana la yiri ku quraacda. meesha jawiga quruxda badan leh. hadda uu roob ka qaaday. muuqaalkeena gadaal buu ka xisaab badnaanaya. waka hadabay quraacdan waa snack ma badno, way aad bay u fududahay. nala socday ilaa iyo wadada hadda meesha ka gaarino. safar dheer baanu galanaa oo 48 saac qaadanaya. halkan aan soo socdo way saaxiibayaal, safarkeennii dalxiiska ahaa baynu weli ku jirnaa. waxaynu soo gaadhnay magaalada lagu magacaabo Ambo. halkaas waxaa inooga muuqda Ambo University jaamacadda wada xasuunaysaa Soomaa. aad iyo aad waxaa meeshan xilmad maqli jirtay lagu xusayaa. ma maqli jirin, laakiin waxaan garanayaa ninkan fanaanka Hajalu Gundesa. Hajalu Gundesa Gundesa campus-ka loogu magac daray. waa fanaan ku qaaliya dadka Oromada dhammaan ama dalka Itoobiya. goorbaad markii la dilay fanaankaas aad bay uga dhadhiyeen. taala loo sameeyay Oromadii marka taala loo sameeyay waa la xusay. taala waxa lagu sameeyay xusa magaaladii Ambaynu joognaa. waxaynu u istaagnay inaan qadayno meel yar oo halkan hotel magaciisa Dure la dhaho ayaynu ka qadayn doonaa. waa la bunayn doonaa. asxaabtu bookir baa la samaystay, meela ayaa la sii fadhiyaa. ma garatay? rag baa halkan jooga. xagadii qabatan saaxiib maas qaybisay. bartanaynu ku qadaynaynaa, kafeegaynu cabbaynaa. safarkeennii dheeraa ee 48 saac soconayay ayaynu tegaynaa. ninkii muxuu ahaa jabirtii ayo jabirtii bunki maxaa cabbi inbalaalan bunka maxaan cabbi quraacday bamana caado cun kursi saalballa bunaa itatam inta u macnay markaa saxawda intaanad quraac cunin bitaha cabinta bun maxaa dhacay markaa huriya hamman caloosha ku xanuunas ya wasi wanaagsan la socda caasisina. saaxiibayaal, hadda waanu qadanay alxamdulillaah. waddanka waxaa lagu yaqaanaa marka la qadeeyo injineeryadiiso bumba lagu dhuftaa Soomaa ya duqur bunaano ama makiyato. laakiin meel jawigeedu fiican yahay ayaynu bun ku dhufana. dabaal xillimaa kugu dambeysay waatan iswiin bul baa xataa ku taala meesha. ciyaalbad baa tahay. iska bunaynayna kadibna safarkeennii baa inoo sii socda.
safar badan ka bacdi waxaanu nabad imid magaalada Wanchi halka dhabarkayga muuqata ayaa laga galaa waynu degaynaa caawa xaggana loo dhaxi doonaa waxaa la dhex galayaa xidhka maaragtay ama forestiga saad u taqaanaanba halkaasaynu galaynaa waxyaalo badan baa laga helaa meeshan oo maaragtay dalxiisayaal badan oo dunida daafiga ka kala yimid maadaama lagu jiro xilligii samarka hadda waxaa la nagu dhahay meeshan yar fuula kadibna waqti ku qaata oo meelo loogu talagalay sawiraanta in lagu galo bal waxaynu kala soo kulmnay ayaynu fiirinaynaa eed jaranjar jimicsi miya akam naga faya qabta jirta jirta واشاي وين تكلنا kaashin qabnu kaashi wow waa duni kale wow bartan xataa muraayad screen baa laga dhigay haddii la siibato that's frisky dunidaas ay dambaysa fiuskaas aad arkaysaan meeshan waxaa lagu talagalay inaad qalbiga iyo maaragtay wixii stress ku saaran inay kaa hoosta kaaga dhacaan wow ninkii galayna hiking ka soo daadagay so we done yes We reached the point, we done man hadda tartiib u socda tartiib u socda Don't come, bro. tartiib u socda tartiib How do you want? this is a risky area bro masaafo 3 kilomitir ayaan soo daadagnay oo hiking aan soo sameynay hoostaan imanay hadda wali waa la socdaa wali waa la socdaa slibra laga in la siisiib ya isma gaadhin wali dheerigi waa la galay hadda Afan amaranya imbedu? Afan amaranya? Imbedu? Malah kasih kan ini? Kasih mereka. Tiba-tiba ingkap nubuya. Buya ingkap nuwallah. Ani sih kan nih, jar-jarin. Suta. Asimakum. Ciyal yar baan kula kulmay halkan oo looda ilaashanaya deetana waxaan rabaa inaan wax yar u qaybiyo ya faras yalla misaaka faras jira qarshi meega qarshi khanif ciyalkan yari waxaan ku arkay looba ilaalinayaan iyo ari ad xabash kuma hadlayaan laakiin luqadda oromada ay ku hadlayaan ad magaayinyo isaga migi ha bona adi magaayinyo hundesa adi magaayinyo namsu hundesa namsu magacaantooda aad u adigiin ciyaalka yaryar waa dhalinyar oroma waa dadka wadanka dhexli doonooyin maadaama waqtigooda hadda ay ku jiraan let's go